daawadayaal ku soo dhawaada saxafi films oo had iyo jeer aad ka dhigata barnaamijyada aynu kaga hadalno aktarada shirkadda Bollywoodka filimada ka sameeya. daawadayaal barnaamijkan waxaynu kaga hadlaynaa Aamir Khan oo ah aktarada shirkadda Bollywoodka kuwada ugu caansan uguna magaca dheer, waxaana uu ka mid yahay tariikhaane saddexda reekhan oo shirkadda Bollywoodka lagu tilmaamo inay hoggaan ku hayaan dhanka jilinka. haddaba jilaagan ayaa waxa uu sheegay hadalka dad badani kasoo yeeray oo ah Aamir Khan waa shakhsi duuniya amaba shakhsi wax deeqa aysan jirin. haddaba hadalkaasi asagoo oo ka shidaal qaadanaya ayuu waxa uu sheegay Aamir Khan cidii rabta in ay film samayso waa inay la timaado buu yiri sheeko wanaagsan iyo jiliin wanaagsan in la isu keeno, markaasi ayaa la oran karaa buu yiri waa film ganmay. Aamir Khan waxa uu sheegay qofka filimka sameynaya buu yiri ma ahan buu yiri in afaarihiisa iyo qaababka filimada uu sameeyo in inta laga soo saaro waxyaabo aad moodid buu yiri in aqli saliim ah aan lagu fikirin kadibna shakhsigaasi magac looga dhigo. wuxuu yiri ma jirto cid aan aniga heshiis la galay amaba qandaraas ina dhex maray oo ka tirsan shirkadda Bollywoodka oo aan kadibna uga baxay buu yiri aniga oo markaas kharash zaa'ida ama dheeraada ka raadinaya, hadduu ahaan lahaa director iyo hadduu ahaan lahaa producer intaba. waxa uu yiri way jirtaa buu yiri in aan aniga go'aansaday buu yiri in aan hal filin oo kaliya sanad kasta aan soo saaro buu yiri, taasina waa aniga buu yiri tricks amaba khiyaano aniga ii gooniya oo aan dareemay buu yiri intii aad keeni lahayd boqolaal filin ama 10 filin oo wax faa'iido lahayn in aad hal filin oo aad u wanaagsan aad taageerayaashaada dunida daafaheeda jooga aad u soo bandhigto. haddaba Aamir Khan oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri shakhsiga markii uu heshiis ina dhex maro waxaan u ballan qaadaa buu yiri shakhsigaasi in uusan wax khasaare la kulmi doonin maadaama filimka dakhli badan kharash badan inta la geliyo dakhli laga sugayo marka filimkaasi tiyaatarada uu fuulo. taasna wuxuu yiri waa heshiis aniga iyo cidda filimka ila sameynaysa oo ka abuu yiri aan sheerka ku nahay qaabka maalgelinta filimkaasi ina dhex taala. haddii ay arkaan buu yiri dadka in heshiiska ina dhex maray buu yiri aniga laba ayaan la yeelan karaa buu yiri mid jiliinka iyo mid kharashka aan la baxay, taasina ma ahan buu yiri macnaheeda haddii producer badan oo film ila sameeyay dhanka dhaqaalaha aniga aan ka dhaqaala badna in aan ahay shakhsi hungurigiisu uu aad u weyn yahay. balse dadka qaarkiis waxa ay yiraahdaan Aamir Khan halka filin ee sanadka soo saaro waxa uu raadinayaa in uu lacag aad u badan oo fooqal caqliga uu ka helo. wuxuu yiri shakhsiga faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa intaba isaga ayaa ka fikira ee haddii shakhsiga uu faa'iido badan ka raadiyay intuu wax wanaagsan sameeyay taas macnaheedana ma noqon karto buu shakhsigaasi inuu doonayahay. dadka qaarkiis waxaad moodaa buu inay qaab qaldan u fikiraan, ha yeeshee fikirkaasi waa fikir qaldan oo ay dad badani aflagaado iyo xumaan ugu geystaan buu yiri dadka dunida daafaheeda ku nool. aniga kaliyana ma ahan buu yiri dadka ay aflagaadeeyaan ee dad badan oo ka fikira buu yiri ayahooda iyo waxa ay sameynayaan iyo lacagta ay qaadanayaanba waa la yiraahdaa waa ay hunguri badan yihiin. taasna ma keenaysa buu yiri inuu Aamir Khan lagu tilmaamo inuu yahay shakhsi hungurigiisu aad u weyn yahay. dadka noocaas ah waxaan leeyahay buu yiri buug iyo qalin inta qaadataan wax barta markaad wax baranaysaan waliba waxaan idin tilmaamayaa in aad barataan buu yiri qaybta economic ama financialka waxa loo yaqaan ee dhaqaalaha. markaad barataan ayaad ogaan doontaan cidda dooniga ah iyo cidda aan ahayn. haddaba daawadayaal barnaamijkii aynu kaga hadlaynay Aamir Khan oo lagu tilmaamay inuu yahay shakhsi hungurigiisu aad u weyn yahay oo dooniya oo filmadana ka raadiya lacag aad u badan ayaad barnaamijka ka dheehanayseen. waxaa barnaamijka idin daadiinaya anigoo Caaqil Cabdi Faarax, waxaad ka daawanayseen Saxafi Films Channel oo aalaaba diyaar idin la inay idin soo gudbiso dhacdooyinka iyo sheekooyinka kuwa ugu xiisaha badan ee ay la kulmaan aktarada shirkadda Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya ka tirsan iyo dhammaan shirkadaha kale ee jirayaasha hadday ahaan lahayd South iyo hadday ahaan lahayd North intaba. inagoo isku duuban oo bacda saxafina waxaynu idin leenahay sidaa iyo nabad.